jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegaya in ka badan 1500 oo qof ay u dhinteen cudurkaasi tan iyo markii uu dilaacay muddo 10 bilood laga joogo in ka badan 2200 oo kiis ayaa la diiwaan galiyay dadaalka lagu xakameynaya fayraskaasi ayaa waxa is hortaagay dagaalka iyo kalsooni la'aanta shaqaalaha caafimaadka waddankaasi madaxa golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in kumaan kun oo dagaalyahaniinta kooxda la baxday dowladda islaamiga ee ku sugan Suuriya iyo Ciraaq ay tahay in maxkamad la saaro ama la sii daayo iyadoo ka hadlaysay kulan goluhu uu yeeshay Michelle Bachelet waxa ay sheegtay in dalalka ka soo jeeda ay mas'uuliyaddu ay saaran tahay wadamada ay ka yimaadeen carruurtoodana dib loogu celiyo midowga Yurub ayaa sheegay in ay ka helayaan codsiyo badan magangeliyo oo magangelyada la xiriira dalalka Latin America gaar ahaan Venezuela waxaana sanadkan ay noqotay tirada saddexaad Venezuela dadka ugu badan ay halkaasi magangelyada ka doonayeen qaramada midoobay waxay sheegtay in ka badan 4 milyan oo qof ay ka tageen Venezuela iyadoo dhaqaalaheedu uu hoos u dhacay inta badan waxa ay galeen dalalka dariska la ah